marka waxa kaloo oo runtii siyaasadda islaamku ay ku salaysan tahay in aan isguursano kana badano dadka kaleeto si rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam uu inoogu faano isagana ayaa noo sheegay rasuulka noo sheegay sallallahu alayhi wasallam marka faa'iidooyinkaas iyo kuwa badan oo aan hadda meeshan macnaha aan waqtigiisa noo saabaxayn ay leedahay ninku afar xaas inuu guursado waxay taageeraysaa bulshada waa siyaasadda islaamka qofkuna markuu islaam yahay runtii waxaa muhiim ah in uu siyaasadda islaamka uu ka fakaro inuusan noqonin qof hawaraaca in uu fahmo siyaasaddiisa iyo dastuurkiisa oo diinta islaamka adoo soo noqonaya jawaabtii hore caqabad adiga ma kala kulantay maxaa kala kulantay yani maxaa dareentay markii gabadhaadii ugu horreysay guursatay labaad saddexaad afraad yani sidee adiga maxaa dareemaysay waxaan rabaa inaan ragga Soomaaliyeed aan la wadaago qodob aad muhiim ah oo runtii guurka ama hal qab ama laba qab ama saddex qab ama afar qab guurka muhiim ah markaad qof dumara markaad gabar islaamaad ama reer islaamaad rabtay inaad dhistay kuna saamixi kara inaad guursato afar xaas iyo saddex xaas iyo wixii la mid ah waa runta inaad sheegtid gabadha aad qabto waxaa laga rabaa inaad runta u sheegto aniga waxyaabaha runtii aan Allah subhanahu wa ta'ala uu iwaafajiyay oo ii saamaxay in biidni Ilaahi inaan arintan ku guuleysto ama afar xaas aan yeesho waxay ahayd inaan runta sheego markaan runta u sheegana waxaa bilaabatay in la aamino waxaa bilaabatay in lagu kalsoonaado anigana sidaas kale aan kalsoonaado way jiraan caqabado oo caqabad waa gabar kale iyo cabsi iyo reer iyo waa jiraan oo ninku markuu hal xaas qabo iyo markuu afar qabo intaba waa jirtaa waxa la yiraahdaa caqabado waa jiraan guurku caqabado leeyahay sidiisaba waxyaabo yar yar oo ay jira laakiin haddii aad isticmaashid qaacidadii islaamka ee ahayd inaad run sheegto ee ahayd inaad cadaalad samayso ee ahayd inaadan qudbasiro aadan aadin iyo wax la mid ah waxaa ku suurtagelaya ama qof islaamka u suurtagelaya inuu ku noolaado nolol macaan inta xaas uu rabana uu guursado waatan aayadaha quraanka waxa ay noo sheegeen nabi alayhi salaatu wasalaam markuu aayado quraan ayaa ku soo degay marka guurka iyo waliba xaasaska afar xaas la guursado shuruudaha ajira oo diinta lagu sheegay jira oo ah yaani qofka in uu u xaq sameyn karin afar xaas markuu guursanayo sidoo kale tana uuna xaq soo noqon karo ama awoodi karin in uu ka soo baxo cadaalad ahaan marka adiga qaabkee u xalisa arintan waa run aayadda quraanka ku soo dhamaanaysa wala tadruha kal mu'allaqa sax weeye Allah subhanahu wa ta'ala ayaa noo sheegay horta waxaa jirto ninku markuu afar xaas leeyahay ama markuu laba leeyahay ama markuu saddex leeyahay waxaa qasab ah oo Allah subhanahu wa ta'ala uu waajib nooga dhigay inaan cadaalad aan sameeyno cadaaladda gacanta inaan ka sameeyno iyo aqliga laakiin wadnaha cadaalad lagama sameyn karo wadnaha waxa weeyaan xataa hadaad qarsato ama aadan ay u bandhiginin waxa weeyaan wadnuhu markasta qof ayuu raacsan ama hal xaas lahaw ama afar xaas lahaw guurka waxa weeyaan ninka dhalinyarada $100 ku shaqeeya waxa u taala two choices inuu xaaraan galo iyo inuu guursado keen ku talinayna xaas labad inuu guursado maya marka ugu horeysa inuu ama guursado asoo $100 haysta oo $100 waxa tiin nin $100 haysta ayaa guursaday $100 asagoo haysta inuu guursado iyo inuu xaaraan galo keen taageerina waxa la taageerayna inuu guursado very good so waxaan taageerayna inuu guursado $100 hadii uu reerkii ku manage gareeyo oo uu reerkiisii $100 asagoo qaatay mushaarkii uu degan yahay fiican yahay ilmi iskuul aadan noloshii ay shaqaynayso $200 hadii ilaahay irsaqa ka dhigo haduu haweysto mid kaleeto wax dhib kuma jiraan absolutely waata axsan noloshooduna ay tahay nolol powerful dabcan anigana sidaas sida dareemaysiinba xiriirkanagu waa xiriir aad u wanaagsan gabar markay wax ku dhacaan ama ay xanuunsan tahay ama ay umusho ama ay xanuun kale uu iska jiro gabdhaha kala garab siiya caawiya dhinac walba family-gan waa family isku farax family-gooda isku faraxsan yahay anitay maxaa dhacaysa in ay mar walba isgarab taagnaadaan garbanaani ma jirayso waxaa jira baraha bulshada in qoyskeena aad iyo aad loogu mashquulay
anagana wax oo diinta ka baxsan ma nasuubin shacabkeena Soomaaliyeed waxa ugu baaqi lahaa inay mashquulka naga dhaafaan maadaama anaka diiniyan wixii Ilaahayna fara aan suubina sunnada rasuulka aan suubina wax lagu mashquulo ma nasuubin marka shacabkeena Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa tartiib ana laga dhaafo buubuuninta iyo wax la wada anaka wax qof lacag nagu siiyo malahan reerkeena oo ku faraxsanahay xaajiga wuuna qabaa been ma sheegayno dad qaarkood waxay leeyihiin iskooley waay qaar oo leeyihiin adeerkood waay adeerkeena ma aha waa xaajigeeni nolosheena oo ku faraxsanahay